munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana maanta ka dhacday wadada dheer ee isku xirto Victoria Elgabila iyo Afisioni ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo ay kamid ahaayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan saraakiil iyo marti sharaf kale ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu soo gaaray goobta ay ka socotay munaasabada ayaa waxa uu gacan qaaday shacbigii ka soo qayb galay munaasabada iyo haween ku labisnaa calanka Soomaaliya intaasi kadib Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu xariga ka jaray wadada isku xirta Victoria Elgabila iyo Afisioni halka uu dhawaan maamulka gobolka Banaadir dayactir ku sameeyay intii ay socotay munaasabada ayuu ra'iisul wasaare Farmaajo waxa uu shahaado sharaf gudoonsiiyay gudoomiyaasha degmooyinka Xamar Jajab iyo Waabari gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ka hadlay munaasabada maanta xariga looga jarayay wadada isku xirta Victoria Elgabila iyo Afisioni oo maamulka gobolka Banaadir ku guuleysto inuu dib u nadiifiyo wadadaasi oo horay bacaad fara badan u xiray haddana ah wada nadiif ah wuxuuna sheegay gudoomiyuhu inuu ku faraxsan yahay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo dhaxgalay shacabka isla markaana ay muuqato shacabka sida uu rabo dawladnimada ama Soomaalidu u taqaanay jidka ceelgaabta ee muddo badan ciid la xirnaa in ciidii laga qaado oo maanta uu furayo Prime Ministerka waxa kale oo farxad noo ah Prime Ministerka inuu shacabkii soo dhaxgalay shacabka siday dawladda u rabaan baa muuqata shacabkan dawladda inay u baahan yihiin baa muuqata shacabkan hawlgallada socotay inay taageersan yihiin baa muuqata ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana ugu horreyn u mahad celiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo muujiyay howlkarnimo isla markaana qayb weyn ka qaatay amniga iyo hooyooyinkii ka qayb qaatay nadaafada hadalkay waxa ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim marka labaad waxaan leeyahay Soomaali ha noolaato Soomaali ha midowdo Soomaali ha raacdo waxaan halkan fursadan qaaliga ah aan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Mudane Tarsan oo muujiyay hawlkarnimo iyo wadannimo waxaan ku raahdaa aan xisaab lahayn oo hawsha xoogeeda magaaladan soo celinta markay noqoto dhanka ammaanka markay noqoto dhanka nadaafadda isagaas kale iyo kala la shaqeysa oo howlwadeennada hooyooyinka wadaniyiinta kale oo maalin walba u taagan inay hawsha garab ku siiyaan gudoomiyaha waa ku mahadsan yahay 100% Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo hadalkiisa sii wato ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlaha lagu nadiifinayo wadooyinka magaalada Muqdisho isla markaana ay dib u soo celin doonaan adeegyadii aasaasiga u ahaa bulshada marka labaad waxaan mahad u celinayaa dadweynaha ka soo shaqeeyay xafladan ama maxaan ku raahdaa munaasabadan qiimaha leh oo aan leeyahay waa maxaan ku raahdaa waa bari iyo Xamar Jajab dadweynaha degan jidkaani saad ogtihiin wuu xirnaa muddo 20 sano ah hadda waxa muuqata dawladdan ay ka shaqeynayso ay tahay wax ugu horeeya inay dadargeliso adeega dadweynaha ay ka mid tahay in jidadkii dib loo furo in iskooladii dib loo furo in hawlihii adeega dadweynaha la soo celiyo insha Allah waan wadeena jidkaan aragtaan oo muddo 20 sano xirnaa maanta waan aragtaan waa furan yahay shacabku waxay ku mari karaan ama baabuurta ay ku mari kartaa si nabad ah oo dhibaato lahayn insha Allah jid walba oo xiran waa furaynaa iskoolada kullina waa soo celinaynaa nalalkii magaalada kulli dibaan arrintan ayaa imaanaysa xilli uu maamulka gobolka Banaadir dhawaan ku guuleystay inuu dayactir ku sameeyo qaybo kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho Deeqa Maxamed Axmed telefishinka qaranka Soomaaliyeed degmada Waabari